ninka la Siciid Cabdullaahi Deni ma ka hadli karaa baarlamaan xil cid ka qaaday ama baarlamaan cid xil ka xayuubiyey isaga oo gacan ku dhiigle ah bitabdi kelmadaas gacan ku dhiigle weeraray xaruntii baarlamaanka Puntland ee uu dal isagu maamulka madaxweynaha ka ahaa intuu weeraray kullaayay ilaaladii joogtay oo dhiigoodii oo qoyan oo aan meydkoodii la aasin haddana kuwii joogay intuu $20,000 u qaybiyey yiri codaya ilaa iyagu doonis ma lehe $20,000 intuu u qaybiyey 58 xildhibaan ayuu habeenkii wuxuu siiyey $20,000 xaqiiq ma aha waxaan been ku been abuuranayo ma aha waxaan iska mumadayo waa xaqiiq cad oo dhaba oo cadaan ah isagoo waxaa sameeyey oo gacan ku dhiiglahaasa oo sharci darro sameeyey kow weerar iyo dil gacan ku dhiignimo ah haddana laaluush hantidii ummadda u adeegsaday iyadoo waliba tiro badan oo $20,000 ku bixiyey inuu guddoomiye meesha ka saaro isagoo dastuurkii Puntland ku tuntay oo jamiyey wax habraaca haba yaraatee oo ama golaha baarlamaanku leeyahayna aan loo marin xilka qaadistii guddoomiyenimada dhoobo dastuurna aan loo marinin ma ka hadli karaa maanta dastuur baa la jebiyey ama habraac baan la marin ama cid baa xilkii laga qaaday miyaan afkiisa iyo dhegihiisu ismaqlayn ilo shiidhow ama umulbaa miyaanu xisaabtamin miyaanu wuxuu ku hadlayo waxa kaga soo noqon kara garan karin miyaanu fahmi karin waxa uu shalay sameeyey maanta inuu cud ka eedeeyaa inay dhaawac isaga gaadhaya iyo sharaf darro iyo karaamo darro ay tahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa isma arkaa islaam rogay isma arke baa islaam rogay waayo ninkii shalay wixii looga sameeyey oo maanta ka hadlaya oo leh cid baa sharci darro xil lagaga qaaday anigu hore waxaan u sheegay Soomaaliyeed ama reer Puntland Deni inuu marmar caadinimada ka baxsan yahay horaan u sheegay wada hadalladii horaan ku soo daray laakiin maanta uu buu maqaanti furay waayo hadduu nin caqligiisu shaqaynayo ama caqli saliimi ku jiro ama wuxuun garanaya ama siyaasadda wuxuun ka fahamsan ama wuxuun inay ku soo noqonayaan miyuu ka hadlaa maanta xil okay miyuu ka hadli karaa xil cid laga qaaday isaga oo og ama uguba gacan dheeraa 6 December 2014 Cabdiwali Sheekh ninka ugu gacan dheer oo xagga hore soo fadhiya waan habraacna u marin wax kale oo marin miyuu ka hadli karaa maanta xil laga qaaday ra'iisul wasaare waxaan leeyahay oo aan taa ku gabagabeynaya Deniyow dhagahaaga iyo afkaagu hays maqleen ficilkaaga iyo qowlkaaguna hays waafaqeen mas-uuliyadduna sidaas maaha qofka ibnu aadanka ahi inuu ismaydho ama ismasaxo waxay tusinaysaa in mentally uu wax u qabo ayay tusinaysaa intaas ayaan kaga gudbayaa su-aashaas iyada ah okay Deni shirkii meesha la yidhaahdo galmudug ama caasimadda Dhuusamareeb la isugu tegey wax maslaxad Puntland ama wax ajanda ah oo ka turjumaya dalka uu leeyahay madaxweynaha ka ahay ama maamulka uu leeyahay madaxweynaha ka ahay ma la tegey mise tororagiyo wuxuu la tegey iyo doorasho inuu ka hadlo su-aashaa jawaabteedu waxay tahay waa maya lamuu tegin wax ajanda oo Puntland leedahay lamuu tegin xataa kuwa ka hadlayay oo mucaaradayay oo baarlamaanku ansixiyey kama u hadlin oo markuu Puntland joogay malaha halkaasoo xiliyo burburan ku leeyahay oo ka hadlayay xataa kama u hadlin okay maslaxad kale oo Puntland kama u hadlin tii taagnayd oo waliba maslaxadda ugu muhiimsan ahayd ee ardayda iyo waxbarashada ee taabanaysay Puntland arrimaheeda bulshada especially waxbarashada kama u hadlin waxyaabihii Puntland ka xanimnaa oo mashaariicdii ahaa Puntland ka xanimnaa oo ilaa qorshaynta qaranka waxba kuma darsan iyo unbu meel la fadhiyeen wixii u soo mari lahaa qorshaynta qaranka oo Puntland maslaxadaheeda ahaa waad ogtihiin wasaarad iyo hay'ad shaqaysa ma jiraan baabadaa u xidhan waxa uu xirina waa in yada oo meesha la fadhiyo
ilaa wax walbaa dowlad rasmiya dalku yeeshay qorshaynta qarankay soo mari lahaayeen inyow kama u hadlin tii ardayda saan soo sheegay kama u hadlin mashaariic kaloo Puntland in wax loo qabto ama dowladdu wax u soo deyso ama ay la shaqayso ama mashaariic u qasdo kama hadlin waxa uu ku mashquulsanaa kaliya doorashada 2020 ayuu ku dhegalaa oo ku indhalaa wax kalena kama soo qaadan isla markiina wuxuu muujiyay xagar 90 digriye geeskeeda kale inuu istaagay oo isagu ammaan kala dul dhacay madaxweynaha dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in wax loo kala sheegi jiray oo la isku diri jiray waxna saanay jirin waxa marka la yaaba Saciid Cabdullaahi Dani cidda uu shaqeeyo iyo maamulka uu xukuumadda madaxweynaha uu yahay cidda ugu maqan hawshii ama mas'uuliyadii uu hayay cidda ugu maqan kan aan doontaan jadahooda ama maslaxadahooda ama waxa badan ee ka xuntoosin doonta ama dowladda wax ka xidhan uga raadin doonta ama caalamka su'aashaas